Waxay habeen waxaan joogay guriga saaxiibaday aniga game ayaan ciyaaraynay waana da'yarayn 16 jir ayaan ahayn waan soo macsalaamay habeenkaas gurigeedana waan ka soo tagay balse waxay habeen aad u cabsi badan sababtoo ah roob aad u daran ayaa da'ay dhulkii oo dhan wada qoyaan ayuu noqday anigana waxaan marayay laamiga waxaan ka soo leexday laamiga dhinaciisa waxaan arkay nin taagan laamiga dhinaciisa waan ka baqo waan ka cabsaday waxaan u leexday dhanka kale laamiga isla markiiba ninka waxaa u imaaday gaarigii ayuu istaajiyay waa uuna la hadlayay anigana jidka ayaan marayay oo marnaba indhaha kama qaadin waan dayayay ninka sidaan u fiirinayo ninka mar ii soo fiiriyo iyo qoslay wuxuuna igu dhahay hadallo kaali yaray waxayuu igu dhahay intii imo ayuu igu dhahay kaalay haddii kale waan ku dilayaa aniga waan cabsaday kadib hoos ayaan fiiriyay anigoo tartiib socda waxaan arkay ninka isoo bursanayo waan cararay kadib orod ayaan isku taabtay dhulkana baraf aad u daran ayaan da'ay waan ooynayay waxaan dhahay inaan dhicin ayaan rajeynaya ninka aan qabanin aad ayaan u ilmeynay waan cararay aniga inta tabarteeda ayaan ordayay sidaan u cararay u orday ayaa ninka wuu iga hari waayay wuu isoo bursanayay ilaa halkaas sidaan u orday ayuu wuxuu isku dayay inuu iga qabto finaanadeeda balse waan ka sii cararay waxaan arkay guri meel ku yaalo gurigaas agtiis ayaan ku leexday waana gargaraacay sidaan u gargaraacay waxay iga fureen laba waayeel waana galay guriga waxaan dhalinayaa isoo bursanaya ninkay banaanka u tagay odaygii waayeelka wuxuuna dhahay gabadhan u soo dhawaatay booliska ayaan kuu sheegayaa ninkii wuu iska baxay gabadheedii booliskan kuu sheegay ayaan dhawoona baxayaa hooyaday ayaa imaaday waana soo macsalaameen ayeeyadii iyo hooyadayna mar walba waxay ka cabsan jirtay inaan banaanka aado maalin walba ubax ayaan soo qaadan jiray waxaan dhigi jiray ayeeyadii awoowa gurigood aan ku badbaaday ninkaas haddii aana maalintaas aan leed waxaan ogaan lahaa inuu gaadhiga igu ridan lahaa uusan i qaadan lahayne